إلهو ما قرنايا ما أنتي تيدا نكون تنتانا دون كفارشين دونا لكن إلهو وحن كابريا ما أنتي تيدا نقطو إنا نفتي إذا قاد أذيب ورالك فأه وأي عبسك هذه بقدين تارك لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله روح بذنبه ما شاء الله. إلهي بنقول هالشيء ياسمينة ورا المعاني ياسمينة إلهو ما قرنايا ما أنتي تيدا نكون تنتانا دون كفارشين إلهو وحن كابريا ما أنتي تيدا نقطو إنا نفتي إذا قاد sidaad muuqaalka hordhiciisa ka aragtay daawade waa Amish oo la sheegay in ay sun cabtay maadaama jaceylkeeda uu ka tagay jaceylkeeda oo live TikTok ka soo hadlay oo sheegay Amish iyo asiga labadooda in ay ku kala tageen wanaag oo haddana wax jaceyl la dhahay ka dhaxeyn si aan kula wadaago fadlan nagu soo biir daawade oo asxaabteena ka mid noqo adigoo janaalka subscribe dhahanayo gambaleelkana u furanayo muuqaalkana like tala dhacayo wixii fikirkaaga ee commentiga noo la wadaag Amish oo la sheegay saacadii ugu dambeeyay in sun ay cabtay maadaama jaceylkeeda uu ka tagay lamaanaheedana uu barta TikTok gabar kale ku dhex shukaansanayo live-na uu ka shukaansanayo markay aragtay muuqaalkaasi sun ay cabtay suntaasi tina ay la seexatay isbitaal muuqaalkeeda oo baraha bulshada saacadii ugu dambeeyay qabsaday Amish oo isbitaal ku jirto faleebo ku socota la keenay barta social media gaar ahaan aaladda TikTok ay ku leedahay Amish akoontigeeda oo la soo dhigay Amish oo aad tabcaan u ah oo faleebo ku socota ayada oo la sheegay in ay sun cabtay oo dadka Soomaaliyeed oo idilna hadda oo la leeyahay u soo duceeya in uu Ilaahay caafiyo Amish oo aad oo u jecleed wiilka ka tagay oona cidleeyay garabkeeda jaceyl xad dhaafna oo u qabtay jaceylkaasi ay ku dhaweed in ay la waalato maadaama baryihii ugu dambeeyo idil Amish lagu arkeenin TikTok-geeda inta aanan ka ahayn muuqaal ayadoo ooynayso muuqaalada hadda ugu dambeeyay akoontigeeda TikTok Amish lagu arkayay oo maalmihii ugu dambeeyay ee soo dhigaysay in ay ooynayso eena qalbi jabsan tahay oo ku cadeynayso maadaama wiilkii ka tagayay ay aad u jecleed laakiin asiga oo sheegay live TikTok uu soo galay uu ka dhex cadeeyay asiga iyo Amish in ay wanaag ku kala tageen oo haddana wax jaceyl la dhahayo oo dib dambana u dhex mari doonin oo asigoo xabad cusub ah la arkay live TikTok inuu ka shukaansanayo ilaan odayga shabeelnaagood ayuu noqday tartiibkiisa ayuu iskaaga baashaalayaa inuu cadeeyay haddana inuu xabad cusub oo iska helay oo iska baashaalayo gabadha Amish la leeyahay in ay si wanaag ku kala tageen xiriirkoodana oo intaasi ku ekaa noloshana ay u baahan tahay in hore loo socdo oona la hakinin wixii horena in laga taga ay ku fiican tahay muuqaalkaas markay Amish aragtay asigoo live TikTok gabar ku shukaansanayo in ay adkeysan weysay ay sun cabtay suntaasina isbitaal loo seexiyay ayada oo isbitaal ee la jiifatay muuqaal laga soo duubay oo TikTok-geeda la soo geliyay Amish oo isbitaal faleebo ku socoto oo indhahaba aanan kala qaadi karin maadaama sunta ay dhibaato aad u xoogan ay u geysatay ayaan kula wadaagi doonaa soo dhawow daawade إلهو ما قرنايا ما أنتي تيدا نكون تنتانا دون كفارشين دونا لكن إلهو وحن كابريا ما أنتي تيدا نقطو إنا نفتي إذا قاد أذيب ورالك فأه وأي عبسك هذه بقدين تارك Soomaali Ingiriis inantaas waa inaan walaashiya mafahanteen wanaagaan isku baranay wanaagaan ku wada soconay wanaagaan ku wada soconay mafahanteen so hadal dardaarana